السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمان صاحب الصوماليات ملك سو جوجتان يسك سو داوريسان حلو wanaagsan طبعا muuqaalkaas hor ah maanta wuxuu qabsaday baraha bulshada wuxuuna ahaa mid aad iyo aad u xanuun badan. ninka Xasan Maxamed Cali Subaha meeshii siyaasad laga sugayay wuxuu dib u istaaray ka tarabiilkiisi waa bari ayuuna hadda ku jiraa baa leeyahay. waxyaabaha la yaab kale waxaa kamid ah in shacabka reer Muqdisho weli ay Xasan u cabanayaan oo aysan baran qof damiir leh oo Ilaahay aqli siiyay dabcan gabadhaas hadalkeeda uma adkaysan karo laakiin kumanaan ka horeysay ayaa sidaas u cabatay Xasan Sheekh Maxamuudna uma jixin waxa la yiraahdaa bini aadamka ruuxa ah sidiisaba waxa celisa labadaas waxa weeye inuu xishoodo iyo inuu baqo. baqitaanku waxa weeye laba nooc baa laga baqaa ama baqitaan laba nooc ah ayuu bini aadamku baqaa. in Ilaahi abuuray uu ka baqo oo qiyaamo iyo bacthi iyo naar uu ka cabsado oo yiraahdo waxa kan Allah subhanahu wa ta'ala ya bari wala xisaabtamaya waa inaan iska daaya oo joojiya iyo inuu ka baqo bini aadamka uu isla war waxa kan intaan aakhiraba la gaarin adduunkan lagaaga harin oo waa laga arsan doonaaye ha talaxtigi. Xasan labaduba kuma jiraan. Xasan Ilaahi abuurtana kama baqo bini aadamna kama baqo. Ilaahi abuurta kama baqo macizeeyo waxa weeye waxaasoo masaakiin ah dhulkooda in loo dumiyo oo loo baabi'iyo oo maalin kasta muxuu ahaatay dhaqaale uu siisto dhulka iyagu ay deganay oo weeshad ka dhaxleen kuba raaxaysteen hadduu Xasan Ilaahi subhanahu wa ta'ala ka baqayo. Allahi geliyay nafta ku jirta maanta neeftaas aynu neefsanayno haddii ay soo noqonayso naftuba naga dhacayso Xasan ma garanayo ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أيون الله سبحانه وتعالى يري حيث مريد كالكاس دون تامرة بني آدم كأنك أقوله بوير إلهي جاس وحاوي عز وجل أو خالق أو إشكوها يظل بجيسة حسب ما بغي تذكي بني آدم كأها جارهان غير مقدسنا حسن كما بغي أفرتي قدام بيسيس والواليس وكاكو حريي ماشي الأورنتي الجزيرة البابك وحاوي عيدا قدغاي sida waxar ooda waxa weey afka laga saaray. marka reer Muqdisho waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa dadka ka dhigay oo idin nooleeyay ee walaalayaal maalin kasta ha caline waxa weey maalkiin iyo naftiina ina difaacataan u soo bax. dabcan Xasan Sheekh Maxamuud dhibaato kuma hayo cid aan hawiye ahay meelihii kala dhawaa laga soo eriyay عند عريسك وكواي مانتو وهوي ويحصل رعنا ورحوي ومقالدي بيدبو إيانا وكل باتيني وعلى إلهي نفوذ إنجليي نفط إلهي إنجليانا وحاوي وحو إنجليا وحيتها إنا ظلمك كنت جدان وإلهي سبحانه وتعالى قرآنك ظلمك إنا الله أقبلن أيونا وشير ظلمها أقبلنا أيوة حال الله يرهر مقدشو ما لنبا مدهرتين يا لقعونني حال ما نتهاد مدهودان ونرجع الله يسكت القاض وياهي مقالبات ayaan idin daari doonaa insha Allah ta'ala isaguna aad u xiiso badan yahay. waxa weeye gabadhii la oran jiray Saadiya Bajaaj ayaa iyaduna buuq ka soo saartay xabsiga dhexdiisa bal aynu daawano dhowr sikin oo lagu sharaxayo buugaas iyo waxyaabaha uu ka hadlayo bal ila daawada. waxaa dhici karta in lagu xiro gaal shiraha marka u sii qalab qaado oo faham guud ka qaado buuga ay qortay haliyad Saadiya Macalin Cali Xasan Saadiya Bajaaj. dhiganaha gaal shiraha Xasan haddii aadan gadan wax badan oo nolosha gaal shiraha ayaa kaaga baaqan doona. bandhiga buuga gaal shiraha Xasan wuxuu qabsoon doonaa 1 September 2026 wuxuuna ka qabsoon doonaa bandhigiisa koowaad magaalada Muqdisho. haddaba yaa lagaaga sheekeen dhacdooyinka ku dhex jira buugan si aan lagaaga sheekeen nolosha xabsiga dhexe iibso hal nuqul oo dhiganaha gaal shiraha Xasan kuna dhiirigeli walaasha oo dulmiga ku xiran. waayahay buugaas waxa leedahay gaal shiraha Xasan wuxuu u adkaysan waayay gabadhaas yar ee 27 jirka ah miidiyaha ama Facebook qoraal ay ku soo qortay ama ay maxay TV kale ka tiri laakiin
jaanis aad u weyn buu siiyey. jaaniskaasoo ah in ay heshay wakhti ay inta ku fadhiisato buug ku qorto. awal waxaa weeye jaaniskaas ma aysan haysan. gabar yaroo bajaaj kilaah la ordayso bariiskeeda aan ka roonaynoo wakhti ay ku fikirtay wakhti ay wax ku qorto aan haysan bay ahayd. laakiin kuwa doqomaah ama xasan xaasidkiisa ah ayaa waxay dhaheen gabadhaa xir. uu xiray, way fadhiisatay, buug dhan bayna soo saartay. horta iyada waan u hambalyanaya, sababtoo ah waxaa la yidhaahdaa dadka waxaa uga caqli badan kuwa musiibadooda barwaaqo u bedela. dhibaatada lagu dhibaateeyey markaad faa'iida ka soo dhex saarto ayaa dadka uga caqli badantaa. jaanis bay heshay ay ku nasato. jaaniskaasna waxaa siiyey xasan sheekh maxamuud. way fakartay, buug bayna qortay. weliba waxaan rajaynayaa buuggaas in inta laga iibsado oo malaayiinta ugu yaraan muqdisho degan ay iibsadaan iyadoo milyaneer ay markaasi ka soo baxdo muxuu ahaa xabsiga. milyaneer iyadoo ah shalay bajaaj kiraahi wadda. jaaniskaasiyaa siiyey xasan sheekh maxamuud. maxaa kale oo buuggan ku qoran oo muxuu ahaa inta xasan ka cararayay ka sii dhib badan? waxaa weeye min daba iyo dacal bay ku tiiqtiiqsanaysaa xasan sheekh maxamuud iyo dhibaatooyinkiisa iyo intii gabadhaas dhibaateynteeda kala shaqaysa. marka waxaan leeyahay xasanow, buuggaasi dhibaato weyn oo adigu gacantaada aad ku raadsata weeye. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala weliba dhiiri gelinayaa in ummadda soomaaliyeed ay iibsan doonto. haddii $10 ama $5 laga siisto halkii daabacaadba lagana daabaco 2,000 gabadhaasi waa milyaneer. waxaa kaloo rajaynayaa insha allahu tacaala in luuqado kale inta lagu turjumo mustaqbalka oo carabi iyo ingiriis iyo faransiisba lagu qoro uu noqon doono buug caalamiya oo ka sheekeeya dhibaatooyinka xasan sheekh maxamuud ku hayo ummadda soomaaliyeed. barnaamijkayga intaasaan kusoo gabagabeynayaa. hada wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.